عليكم ورحمة الله وبركاته. سر ولا صاحبي الله halkani waa kulmiye waliba waxaan ku jirnaa buugeena A to Z English to Somali words buugan oo aan ku baranayno luqadda Ingiriisiga qaybteeda words qofka u baahan vocabulary inuu barto buugan ayaa ku filan inta eray uu ka kooban yahay waa 1729 eray oo 100 page ah buugan ayaa arday fara badan iga soo dalbaday saaxiibayaal haddaba waxaan maraynaa maanta waa qaybtii 10aad ayaan soo gudbinayaa part 10 ayaan soo gudbinaya casharadu markaan waxay noqon doonaan kuwa daba joog ah insha Allah maalmana waxaan u qorsheyn doonaa inaan soo gudbiyo English horrifying inaan soo gudbiyo maalmana waxaan qorsheyn doonaa inaan soo gudbiyo English topics haddaba sidaas ayaan u kala qaadaynaa hadduu ay qadaro jadwal ayaanu sameeynaa oo aad iyo aad marka loogu dhaqmi doono insha Allah koorsooyin waan qaban doonaa oo lagu baran doono luqadda Ingiriisiga taa oo certificate iyo diploma lagu bixin doono hadduu ay qadaro maanta waxaan ka bilaabayaa ereyga 180aad ayaan ka bilaabaya 180aad ereyga ku jira ayaa wuxuu yahay sida tan waa brave ereyga anagu waxaan sameeynaa ereyga Ingiriisiga ku tusaynaa brave weeyaan kadibna af Soomaali ahaan baan kuugu dhawaaqaynaa brave dhawaaqiisa af Soomaali ahaan aad ugu dhawaaqi lahayd baa lagu qorayaa sidoo kale macnihiisana waa lagu sheegayaa marka buugga dhanba marka sidaas buu ku bilowdaa sidaasuna ku dhamaadaa marka hadda ereyga 180aad waxa weeyaan oo noogu horeeya waa brave okay waa brave waxa weeyaan waa geesi ereygan brave hadii la yiraahdo waxa way qofka geesiga ayuu tilmaamayaa oo ereyo fara badan way jiraan oo geesi ah laakiin tan hadda waxaan doonaynaa inaan barano erey kala geesi inuu noo iman doono waan filayaa marka waa brave waa maxay waa geesi qofka macnaha wuxuu dhahayaa sidoo kale I am a brave man anigu waxaan ahay qof ama nin markaas geesi ah marka ereygan hadad qaadato macnihiisa waa geesi weeyaan ereyga 181 waxa weeyaan breakfast okay breakfast waka halkan ma ku fiirso Englishka breakfast ayaa ku qoran hadii la yiraahdo waa la kala qaad hadii la yiraahdo tan kaligiisa break iyo fast laba eray oo isdhaxgalay way fiiri break hadii la yiraahdo waa kala jibin fast waa maxay degdeg ay noqotaa marna waa son marka hadii la isku daro breakfast waxa weeyaan breakfast waa quraacda subaxdii afka lagu bilowdo ayaa waxa loo yaqaanaa marka breakfast waa quraac weeyaan okay ereyga 182 waxa weeyaan waa breathe okay breathe af Ingiriiska breathe ayuu noqonayaa haddana breathe waa maxay waa neefsasho breathe waa neefsasho marka waa neefti ayaa waxa loo yaqaanaaba breathe waa neefsasho okay tan kala 183 waxa weeyaan waa bribe okay ama brave af Soomaaliga aad ugu dhawaaqi lahaydna brave waa maxay macnaheedu waa laaluush brave means laaluush ee loo jeedaa okay in qofka markaas ee laaluush iska bixiyo oo wixii lagu haystayna marka loo dhaafo waa sidaas marka hadii qof qaadanayo laaluush aad aragtana kaas waxa loo yaqaanaa brave taker okay waxa loo yaqaanaa brave taker waa laaluush qaate marka laaluush brave ayaa loo yaqaanaa brave waa laaluushka ereyga 184 waxa weeyaan waa brief waa kan brief ee loo akhriyaa brief means kooban okay kooban qofka marka aad ku weydiinayso inuu faahfaahin buuxda ka siiyo noloshiisa ama naftiisa qayb kamid ah waxa dhaysaa give me a brief details about yourself haddaba fadlan isi faahfaahin kooban oo ku saabsan noloshaada marka brief waa maxay kooban waay okay ereyga 185 waxa weeyaan waa bride okay bride waa maxay waa caruusad bride waxa weeyaan waa caruusad gabadha markaas arooska ku qoran ee aroos la aroosaya ayaa waxa loo yaqaan iyada waa bride iyada waxa loo yaqaan marka waa bride waa caruusad ayaa la yiraahdaa okay ereyga 186 waxa weeyaan isaguna bridegroom waka bridegroom okay bridegroom waa aruuska marka kanna waa wiilkii isagana wax aroosay marka gabadha waxaan ku soo tilmaanay aroosada waa bride ayaan dhahnay wiilkana waa bridegroom waa aruus marka wiilka wax aroosayo marka habkaas loo kala qaadayo ereyga 187 waxa weeyaan waa broker okay waa broker oo macnaheedu waa maxay marka hadii la yiraahdo broker waxa weeyaa broker
ودلالك وقفك دلالك أما دلالك ألابتا أدو جينيسو إساق كو إيبينيو كديبنا كوميشن لغسينا إساقنا وحوقها بو أيو كلية مركا وحوقادو أيا وحا مركاسي يا وحو صارا broker وحويان وبروكر broker ودلالك دلالك ويان isaga meel buu fadhiyaa kadibna alaabtaada u geysanaysa isaga iibinayo adigu marka waad isaga dhaxbaxaysa halka erga 183 xawayaan waa broadcast okay broadcast marka waa maxay broadcast waxa weeyaan broadcast waa warbaahin macnaha tusaalahan waxa lagu yiri danan broadcast misana waxa lagu yiri BBC broadcasting waa marka waa warbaahinta BBC oo kala loo jeeda marka hadii aad aragto marka eregan broadcast waxa weeyaan broadcast warbaahin weeyaan waa broadcast waa warbaahin okay qaybta kale waa ka erega 189 waxa weeyaan waa broom macnaheed labadan double o dan waxa loo akhriyaa loo akhriyaa marka waxa weeyaan waa broom waxa weeyaan waa mafiq waa maxay isaga waa arkayna waa kan xaaqin ayu limit misana iskoobe saddexda ayaa marka waxa weeyaan waa mafiq oo badana waxa adeegsada dadka markaasi waxa loo adeegsadaa meelaha mutuleelka oo kale in lagu dhaqdo lagu tirtiro kan waa maxay xaaqinkiina naqaan kan waa iskoobaha marka waa broom waxa loo yaqaan broom waa mafiq misana waa xaaqin misana waa iskoobe saddexda ereyba u qaado ereyga 190 ayaa waxaan dhahaynaa waa brother okay brother waxa weeyaan walaalka brother waa walaalka erga 191 waxa weeyaan waa buffalo okay waa ka buffalo waa maxay waa lo dibadeed ama lo duureed ayaa la yiraahdaa buffalo okay buffalo waxa la yiraahdaa buffalo waa maxay waa lo dibadeed okay dibada sida hadda marka dameerka oo markaas dameer duurjoog oo dameer marka dameer faro loo yaqaan zebra Allah Soomaalikan laakiin kan caadiga dabjooga ah la dhaqdo waxa la yiraahdaa ka donkey ala yiraahdaa marka kan oo kan saasoo tan waa maxay waa buffalo waa maxay waa lo dibadeed way erga 192 waxa weeyaan waa pool waxa weeyaan waa dibi waxa la yiraahdaa waa lo'da midka labka ah okay lo'da weeyaan laakiin midka labka ah ee ninka ah ayaa waxa loo yaqaan dibiga marka pool okay pool waxa weeyaan waa dibi ayaa loo yaqaan ereyga 193 waxa weeyaan waa build okay ereygan ku adkee build ayaa leedahay build waxa weeyaan build waa dhisid weeyaan dhisid marka waxa la dhisaaya waxa loo yaqaan dhisid marka English ma kala joogo laba ku imaana mar waxa la yiraahdaa construction waa dhismo kan waa build waa dhismo marka iyadana kulli farqi u dhaxeeyo oo marka la isticmaalayo laakiin hadda build waxa weeyaan build waa dhisid marka doonayso marka dhisidna adeegsato ereygan waa adeegsan kartaa okay what do you want to build maxaa doonaysa inaad dhisto inisiya sanadkan gudihiisa maxaa doonaysa inaad dhisto marka build ayaa loo yaqaan dhisitaan way ereyga 194 waxa weeyaan waa button waxa weeyaan waa baldan ama sana waa badan meel ku yaala badanka computerka badanka mobilka badan ayaa leedahay kana mise waa button marka inta saddexda waan qaadanayna waxaan leenahay button okay button waa ka maxaa weeyaan waa baldan misana waa badan misana waa button saddexda macno u qaado erga 195 waxa weeyaan waa butterfly okay fiiriya butterfly marka waa maxay butter oo wuxuu noqonayaa kaligiis butter kaligiis wuxuu noqonayaa marka saan u yahay subag ayuu noqonayaa fly waa maxay waa duurid misana waa duqsi ama taxsi ayuu noqonayaa laakiin waa isku daraya waxa weeyaan waa butterfly waxa weeyaan waa balambalista loo yaqaan butterfly-ga erga 196 waxa weeyaan waa but waa ka but in badan wala adeegsadaa laakiin okay waa ma fiiri waxa leeyahay qofka I want to go to the home waxaan rabaa inaan guriga aado but marka laakiin oo soo geliyo qofkan laakiin ma ku dhahay marka but laakiin waa eriga 197 waxa weeyaan waa bring waa ka bring waxaan waa keenid okay bring that it to me
taas aniga ii keen ama bring one could, okay, or one glass of water, okay, bring a glass of water fadlan ii keen markaad biyo ama koob biyo ah markaas saa leedahay waxaad adeegsanaysaa ereygan oo ah bring aad adeegsanaysaa ereygan ugu dambeeya waxa weeyaan 198 waxa weeyaan waa bring about waxa weeyaan waa bring about waa sababid in wax shay uu sababo ama wax dhacayo adigu sabab u noqoto kaliya waxa leedahay marka waa bring about tusaalahan waxa leedahay the new law sharciga cusub will bring about wuxuu sababi doonaa change isbedel ayuu sababi doonaa marka halkaas ay ku soo afmeeray saaxiibayaal waxaan rajeynayaa inaad like saari doonto haddii like saarto muuqaalo fara badan ay ku soo gaari doonaan subscribe hada taabato waad ku maasan tahay waliba sidii gambaleelkaasi furato ayaa ka wanaagsan mar walba casharada si ay kugu soo dhacaan ku maasan saaxiib